Assalaamu calaykum. Dadka Soomaalida ah waxyaabo fara badan baa ka dhexeeya wanaag ah. Wanaaggii ka dhexeeyey ee cilaaqaadkooda wanaajinayay siday maalinba mid ugu kala tegayeen waxay noqdeen dad wix kasta oo wanaagu ka dhexeeyey burburiyey. Waxyaabaha hadda ugu yaabka leh ee ugu dambeeyay hadda dadkeennii ay ku kala tegayaan waxaa ka mid ah diinta Islaamka oo nin waliba diinta Islaamka dhinaciisa inuu ka haysto oo aan cidina cid wax ka dhagaysan oo nin waliba qofka la qabiilka ah kaliya uu wax ka dhagaysto bay hadda maraysaa. Sababtuna waxa weeye marka dulmigii oo muuqda ciddii dulmiga samaynaysay shiikha la qabiilka ahi uu ama ka aamuso ama taageero. Bari ka maalin marka uu damco in uu dulmi ka hadlo yaa ka dhagaysanaya ama dulmi dadkiisa lagu sameynaya ha noqdo ama cid kale oo dulmi isku sameynaysa ha ahaatee cid ka dhagaysanaysa male. Maxaa yeelay markii qabiilkiisa iyo dad deegaankiisu ay dulmiga sameynayaan waa kii ama taageeray ama ka aamusay bay noqonaysaa. Tusaalaan idin siinaya waxyaabo badan oo waxaa jira Soomaalidu Islaamka waynu haysanaa laakiin diintii aynu ka dhignay mahmahaheenni oo kale ahaa la jiifiyaano bannaan. Qofku in uu dulmigii mararka qaar rabo inuu u ekaysiiyo xaq ama markuu u ekaysiin kari waayo uu odhanayo kii la dulminayay ka wax dulminaya uu ka dhigayo dad siman bareejo oo yidhaahdo macnaha isdaaya oo uusan odhanin war hebel uu dulmi baad wadaaye ka daa hebel dulmiga. Maxaa weeye xaqa in la sheego waa lagu ammaanay dadka muslimiinta. Ilaahay wuxuu yidhi walaa yakhaafuuna lawmata laa'im. Cidna ogama baqaan xaqa inay sheegaan. Waa lagu xidhayaa iyo waxbaa lacag baa lagaa goynayaa iyo waxaas dad ku shaqeeya maaha dadka rabbaaniyiinta ah. Marka haddii aad ka aamustid xaqa ama aad u hiilisid kii dulmiga samaynayay ama aad sintid kii daalimkii madluumkii waad qofkii victimka ahaa ee lagu tacadiyay aad tiraahdid dhibaatada jooji aad ku tiraahdid runtii waxaad noqonaysaa qof xaq aan sheegin yacni fansalakh xaqii buu ka dhex siibtadoo danihiisu raacay wey danaystaad noqonaysaa culimo usuu aad noqonaysaa. waxaa maanta iga hadlayay oo arrintaa diintaan uga hadlaya waxa weeye waxaan arkay niman Hargeysa Burco ka hadlaya oo nin uu yahay guddoomiyaha hay-adda amr bilmacruuf wa nahy can ilmunkar buu ku magacaabaya maamulka Somaliland. waxaan arkay Faysal Cali Waraabo dhar cadcad intuu soo xidhay Rabadaantii yacni dhar cad oo la xidhay diintu maaha haddana carab dalable iyo diin iyo ka hadlaya waxyaabo diin isu ekaysiinaya. waxaan arkay Sheekh Dirir oo isaguna carab dalable ku hadlaya oo arrintan laascaanood ka dhigaya wax laba kooxood oo labadaba khaldan oo isdilaya oo waxyaabo yaryar ka hadlaya. waa hiil weeye waa garab goroyeen baa la yidhaahdaa. runtii xaq kumaydaan hadlin. wiilal waxaad tihiin Soomaaliyeed oo beeshoodii oo khaldan intay runta u sheegi lahaayeen ee qaban lahaayeen maamulkoodii iyo beeshooda ee dadkay ku khaldameenna raaligelin lahaayeen dulmiga dhacayana caddayn lahaayeen ka gaabsaday baad tihiin oo tolkood u hiiliyey. fiqi tolkii kama janna tagay Soomaalidu ku mahmahda. runtii waa arrin murugale in diintiina maanta ay noqoto in qofkii daalimka ahaa qofka la qolada ahi uusan qaban karin. diinteena waxay sheegtay unsur akhaaka daaliman oo madluum. nabiga markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi yacni qofka khaldan haddii la dulmiyo waad u hiilinaysaa haddii uu wax dulminaysa ugu hiilinaynaa culimaad tihiin waad og tihiin. wuxuu yidhi qabo ka qabo adduunkii aakhiradiisaba wax dee halaagaya ka qabo maydan qabanin. runtii diin kama hadlaysaan. cid dambe oo qoladiina diin idinka dhagaysanaysa cid dambe oo qabaa'ilo kale oo diin idinka dhagaysanaysa ma jirto. leanna waa la og yahay markii ilaah baa idin imtixaamay oo waxaa hortiina la keenay wax aad mudan tihiin inaad qabataan oo intaad ka gaabiseen aad weliba kii daalimka ah la jirteen. in badan dadka Soomaalidu waxay isku khaldaan yacni idaltaqaa haddii laba qof oo muslina ay seefis kala hor yimaadaan alqaatil walmaqtuulu fi nnaar way soo daliishadaan
laakiin mar walba ma aha ogaada waxa weeye labada qof ee muslimiinta ah marka ay isku dilayaan ee labaduba khaldan yihiin ee midba midka kale uu doonayo in uu dilo oo uu dulmi ku dilo weeye laakiin haddii qof muslimihi intuu deegaan ka soo duulo oo hub soo qaato uu deegaan kale oo magaalo laga adimayo oo muslimiin iyo culimo iyo garaado iyo cuqaal iyo qabaa'il de intaasoo tiro la eg ay degan yihiin intuu ciidan la soo kor fadhiisto uu madfac la dhaco oo guryaha ku dumiyo waa la iska qabanaya haddaad marka daalimka wax dilaya aad iska qabatid waxa weeye dee ka daalimka abaa khaldan يعني من قتل دون مالي يعني قفك عوية دي مال كيسي النفتيسي يعرض كيسي يديغان كيسي لو يما دو ليغيس لا دادي واستفاعية marka laba qof oo siman ma aha marka carabka dalabta leh ee leeyahay labadiina waa khaldantihiin oo masaajid baad ku wada tukataan joojiya de masaajidka hortiisa haddii qofku kugu sugo oo aad iska celisid waxa la oranayaa masaajid ba ma hay masaas ma qofka muslimka ahi waa qof gob ahoo nasab ahoo xornimo ilaahay uu ku waajibiyey inuu ku noolaado inaynu xornimo ku noolaano waa waxyaabaha waajibka qofka muslimka laga rabo weeyaan waxaa laga yaabaa in la yidhahdo meesha maamul ba ka ahaan jirin okay maamul baad ka ahayd haddaad maamul ka ahayd oo aad maamulkii garan weyday oo dadka amnigooda sugi weyday oo aad adigu dishid culimada magaalada laascaanood iyo garaadada iyo waxgaradka iyo shacabka degan markaad wareysato waxay ku sheegayaan waxa wax dili jiray ee dadka 120 kor u dhaafay madaxa u soo duuban jiray inuu maamulka Soomaaliland ahaa waa la wada ogyahay arrinta يعني runtii waxa weeye xaqiiqada meesha taalo dadka meesha jooga way ogyihiin qofkii siyaasadeynaya ama qarinaya ama wax kala marin isaga u taala laakiin ahlu Makka adrab shacbiha dadka reer laascaanood iyaga ayaa og meesha qodaxdu ka muday maamulkaas dadka saadhigiisa u daadinayay culimadan hadda hadlaysa iyo ninkan hadda amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar gudoomiyaha oo ah iyo Faysal kan hadda dharka cad soo xidhay iyo Sheekh Dirir kan maartay قال الله iyo macnaha diinta inuu ku hadlayo isagoo tafsiirka iyo xadiista iyo diinta dadka wax sheegaya haddana maalin kaliya meenu arag isagoo arrinta laascaanood ka hadlaya meenu arag isagoo dadka dhigooda lagu daadinayo ee madaxa loo duuban jiray isagoo ka hadlaya si hadda u hadlayaan iyaga oo saf soo galay meena arki jirin ma ka hadlayaan waxa yeelay waxba kama gelin waxay ku taageersanayaan maamulka Soomaaliland khaladka uu sameeyay bal inuu muuqdo dhibaatada inay muuqatay iska ilaalinayaan markii dadkii deegaanku ka galgisheen ka mudaharaadeen dadkii baaska la dhacay maxay uga hadli waayeen nimankan hadda hadlaya culimada isku sheegaya kamay hadlin markii dagaalku bilowga ah maxay uga hadli waayeen kamay hadlin markay arkeen in laga adkaanayo maamulkoodii oo uu fashilmay oo dadkii deegaanka ahaa ay isu soo gurmadeen oo maamulkii magaalooyinkii laascaanood iyo magaalooyinkii ilaa meel walba laga soo saaray ee isugu yimaadeen gooch cadde iyo hareerihiisa markaas mambarka soo fuuleeno dhar cad soo xidheeno walaalayaal isdaaya maxaad u oran weydii war dadka daamuusow ciidamada ka soo saar madfaca ka jooji deegaamadan nimankan dagaalamaya gooch cadde ku jira waa rag isaaqa war ka baxa oo deegaanka isaaqu degan yahay gee maxaad u oran weydii oo xaq u sheeg weydii talbiso macna talbisuna الحق بالباطل يعني حقي iyo baatilkii baad isu ekaysiinaysaa waxaad ka dhigaysaa ciidamada gooja cadda ku jira ee dadka dilaya inay laascaanood dadka ka dagaalamay iyagu siman yihiin oo magaalada wada leeyihiin baad ka dhigaysaa mana wada laha deegaamadan qabaa'ilkii deganaa oo culimo leh culimadayadii baad joogta sheekh aadan weli baad jooga ma sheekh aadan weli baad ku leedihiin culimo sheeganaya billaah calayhi culimada kaleba saas kalmadahaas isticmaasheen dadka culimada sheeganaya baad tirahdeen ma sheeganayaan culimo weeye waaqica og dadkana la dhashay weeyaan hadday dulmi sameynayaan ka qaban lahaa hadday naftooda la soo dulmiyeyna u gargaarayo wax iska celiya la weeyaan annaga le wax iska celiya oo dadkan diin islaamna aan ku dhaqmayn iskuna xukumayne ee adagtiin hargeysa maxaad uga hadli wada wax ka jira khaniisnimada ka jirta ee intaas oo dada maxkamadaha lagu soo saarayo qaarna xorta yihiin dadka lagu gaalinay maxaa uga hadli weydeen kama hadlaysaan liwaadkii badan ka hadlaynin
kufrigii baydan ka hadlaynin gaalnimo carruurta la gaalaynayay kufsigii baydan ka hadlaynin dhiigga muslimkee la daadinaya laascanood lagu daadinayadan ka hadlaynin haddana culimaad sheeganaysaan dhar cad baad soo xidhanaysa halkaas soo taagaysaan runtii diintii inaga dhexaysay nin walba dhinaciisu kaga jiraya idinkuna diintiina isu sheegaya burciyaha Hargeysa ka joogow laascaanood iyo nimankan kale ee deegaamadan joogaana iyagunba isu sheegaya diintooda nin walba diinta tulkiga ka dhageysto bas wey intaasay Soomaalidii intaas laga hahay xeedhada salkeeda laga hayay intaasay noqoto runtii diin kuma hadlaysaan qofka muslimka ah naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa inuu difaaco oo haddii muslim soo weeraro iyo haddii gaal soo weeraro uu difaaco weey oo nasabnimo iyo xornimo uu ku noolaado weeyaan mana sinna dadka gooja cadde ku jira ee burciya Hargeysa Gabiley laga soo ururiyay ee gooja cadde ku jira ee jirida ah ee Nuuxtaani iyo Cali Barre iyo Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo waxa la midka ah ee tayadooda ogtihiin ay madaxda u yihiin ee gooja cadde intii ku soo ururiyeen iyagiina la laynayo iyaguna wax laynaya inay khalad ku sugan yihiin qof kasta woogya dadka meesha ku dagaalamayana uma sinna dadna waa dadkii deegaanka lahaa oo dhulkayga iiga bax walaa inna waa nin soo duulay oo Gabiley iyo burciya Hargeysa Berbere laga keenay weeyaan ciidamada soo gurmanaya laascanood ka dagaalamaya Hargeysa burcay soo marayaan culimadan hadlaysa ee amr bil macruuf oo nahy aan munkar ka hadlaya maxay u joojin waayeen ma joojinayaan ma xaq bay u arkaanba oo de waba garab taagan yihiin oo waxay leeyihiin dhul baad inoo soo qabanaysa waa dhul doon weeyaan dhul bay rabaan inay qabsadaan qabaaladii dariska la ahaa bay rabaan inay qabsadaan laakiin tamar male ma qabsan karaan dagaalkii oo bil socday baa gooja cadde lagu soo ururiyay hadduu sii socdana waa laga saaraya marka diintii islaamkana waad kharibaysaan oo dadkii kalsoonidii baad culimada ku qabeen ka qaadaysaan culimada Hargeysa burca ka hadlaysana ee dharka cadcad soo xidhanaysaana waa dulmi bay ku hadlayaan dad daalimiin ah oo maamulka Muuse abayna isgarab taageen Allahna subhanahu wa ta'ala arinta kaga may biqin ilaahay inuu toobad keenaan oo hadlaan mar labaad oo Muuse iyo xulufadiisa iyo ciidankiisa ay ku amraan oo diin ahaan u wacdiyaan inay kala soo baxaan meesha hadduu yeelay hadduu yeelin isaga u taala laakiin idinku inaad tirahdaan baa ladinka rabay laakiin maba odhanaysaane waaba taageerteen waxaad ogaataan inaydan cid dambe oo deegaamadan u dhalatay aanay diinba idinka dhageysanayn tolkiin diinta u sheega cid dambe idinka dhageysan mayso wassalaamu calaykum